استريح قلبك يقول قاصدي ولا الوحنا جوجا halka cawi joogto aniga maxay dhartay gabadhaadi leedahay qalbigeyga ku jirta anigu qalbi ma lehimiya idhaaf jacaylkaygu iib maaha dollar baa jeedaya hadii adduunka oo dhan isaga lay garab dhigo isaga dooranay awo hooyo ku yeedhisa عوا يا أبو مرتبة نوم أنا سيستياري هيا أبو sanado badan kadib waan ku faraxsanahay inaan imaado maanta miyiga منامر با سودو ها عوا ما دقيبا إن أبتوات بدشة adigu weyn aad soo isbedesho laguma garanaye نعمر وصوده وهو يوين كيجيو ما هتسند إيدو ما أنت بحيث بدلت له عوا هee ولي هو تورتي مكو في عنتها هاي haddii aad soo qaban karto waa eegi doonaa عوا runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ku arko aniguba waan ku faraxsanaynaa miri maashahaaga awo aniga ayaa u qalma hooyo naamir magaaladii sidee bay ahayd hooyo hargeysa mashquul ay ahayd balse miyiga ayaa ka jawi fiican عوا hee miyaa daashay shaqada miyigu daal male naamir عوا ma xabsataa berigan yarin adiga iga adkaan jiraye iminkana adigaan ku dhageysanayaa cawo ma dareentay inay wax isbedeleen maxaa uga jeedaa naamir markii aan ku arkay ilaa iminka qalbigu si kale ayuu dareemayaa naamir waa inaa xasuusnaataa inaan qaraabanahay waan ogahay balse dareenkayga ma xakamayn karo macquul maaha waxaan ka baqayaa dhacaya ونيو هاي وجهك ما أنت ولا عيور وراك مقضي ما قص صاحب wax walba way isbedeleen dadka dhan waxay moodayeen inay wax walba saxsan yihiin laakiin ma saxsana waayo waxaan waayay noloshayda dhan cawo maanta waxaan doonayaa in magaaladii ku noqdo degdegan miyaa waxaan moodayay inaad dhowr cisho sii joogaysee laakiin cawo shaqa ayaa sugaysa hargeysa balse qalbigaygu halkan ayuu joogi doonaa naamir fadlan hadalkaa ka dhig mid run ah waayo qalbigaygu ma adkaysan karo sugitaankaaga cawo si rasmi ayaan kugu iman doonaa mayga ballan qaadaysa inay sii sugi doonto haa naamir haddii qalbigaygu sidan sii ahaado awo hooyo ku yeedhisa awo maana kula hadlayn hooyo ku yeedhisa subax wanaagsan rayska subax maxaya awa subax awo hey naadeer rayska awo inaad erso moogid inaan ku rabaan ku doonayo
hayga tegin naamir sababtoo ah qalbigayga ayaa ku xidhan waan ku soo noqon doonaa ballan ayaan kaga qaadayaa naamir haddaad soo noqoto noloshayda iyo qalbigayga waa kuu diyaar waan arkaya si wax walba uga socdaan qalbigii cawo hadda naamir ayuu hayaa laakiin taa wixii ka badan ma sii sugi doono cawo haddii qalbigaaga aniga ogolaado waxaan diyaar u ahay inaan idinku noolaan doono haa naamir qalbigayga iyo noloshayda waa kuu diyaarsan yihiin naamir sidaad u baxdayba gurigii cidlo ee ma ii soo dheerin kartaa cawo markii ay taadaad ogolaato waxaan wada noolaan doonaa nololta u sarraysa naamir waxaan ballan kaaga qaadayaa inaan u aqbali doono jacaylkaaga sida ugu quruxda badan halo naamir ila hadal naamir maadi maqli naamir waan ogaaday wax kaste waxaanan ku ogaaday inta dhanad miyiga ku maqnay laakiin naamir waxaan kuu sheegayaa inay gabar reer miyiga aan ku fiicnay nolosha magaalada marka waxaan kugula talin lahaa mustaqbalkaaga maaha gabar reer miyiga ee dantaada eego waa qalbigii cid kale ma maamusho anigu waa go'aansaday waana doortay qofkii aan u baahnaa laakiin ogow naamir ayaan waa gabadh qurbaha ku maqan fursad ayaanay kuu tahay maxaad u dooranaysa ku falaysaa gabar reer miyiga istara jacaylku waa dareen mana jira qaanuun kaa istaagaya inaad raacdo qalbigaaga aniguna waan doortay qofkii aan u baahnaa haddaanu qalbigaagu uusan ogolayn ka fikir mustaqbalkaaga si kastay tahay kuma fiicna gabarh miyiga joogtaa ee waxa kuu fiican gabarh qurbaha ka timi istarax qalbigii wuu go'aansaday walaal wuxuuna joogaa halkii cawi joogtay halow ayaa wax war maxaad ii haysaa waa runta oo shakigaagu wuu rumoobay waxaanu jeclaaday cawo waa waxaad filayay taasi laakiin weli fursad ayaynu haysanaa oo iyadu may ogolaano aniguna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan tikilka usoo goosan doonaa waanan imaanayaa nabad ku kaalay naamir qalbigayga adiga ayaa weli ku jira alla talo miyay soo degtay ayaan hadda waa fursadaadii waan ogahay balse cawo ayaa qalbigiisa weli ku jirtaa ismana lihii weliba si fudud bay qalbigiisa uga baxaysaa hadda isagiina mee talow meeyey halkii taagan yihiin ma adigii baa naamir muddo badan ayaan ku jeclaa waan ku raadinayay halkan waxaan u imid si aan adiga jacaylkaaga u helo ayaa waan ku ixtiraamayaa waad ogtahay aniga qalbigii wuxuu hayaa cawo iyadaana ku jirta qof kalena ma qaadayo sidaa hay odhani naamir waxaan danahayga u soo seegay adiga jacaylkaaga si aan u helo wax kasta oon lahaa ama wax kasta oo aan rabay waxaan u soo seegay si aan adiga kuu heli lahaa adiguna waxaad iigu jawaabtaa sidaas aniga maxay idhaartay gabadha aad leedahay qalbigayga ku jirta anigu qalbi ma lihi miya idhaaf ma aragtay siduu shalay difaacay cawle qalbigiisa iyada ayaa ku jirta anigu ma aqbalayo waxaas qoys ahaanna ceeb ayay noo keenaysaa sababtuna waxay tahay in gabadhan wax isku nohomiyi joogto walaalkay jeclaado haddii lacag lagu xalin karo ka waran sidee halkay joogtaa cawo cawo waxay joogtaa miy waxaana dhashay eedaday maxay nagu qaadan kartaa haddii aan isnidhaahno taga ma fahmin waxaan u qaadayaa lacag $10,000 waxaana ka iibsanaya jacaylkeeda waa fursad fiican mee staafkaygii waxaad ii diyaarisaa gaari sidoo kale waxaad bankiga igu saartaa lacag $10,000 isla hadda cawo way kuu dhammaatay alla waaba tanba cawoy cawo alla inaabti istareex sug halkaasaad ku salaaman tahay inaabti hawl yar ayaan kuu hayaa waxaan rabaa inaad hawsha ka faa'iidaysato haddii aad caqli leedahay ii dhib borsada nogahayna naamir jecesha laakiinse mararka qaar qofka jecesha in sii daayo weeye tani waa bilow cusub aad kaga bilaaban karto noloshaada meel kale inaabti cawo mustaqbalkaaga ka fikir inan baa tahay miyiguna maaha nolol rasmi ah ee waa nolol rafaada hargeysina way ka qurux badan tahay nolosha miyiga jacaylkaygu iib maaha $1 baa jeedaayo haddii adduunka oo dhan isaga lay garab dhigo isagan dooranaya